halkana mara yar bay ku qabeen marka waxaan xasuustaa qof rukaabkii dadkii dawladda saarnaa kamid ahaa yaa gabdhihii mid kamid u damca inuu la hadlo oo yiraahdo kaalay wax baan u baahanahay markaas wuxuu ku yiri gabadhii naayaahe weli ma iloobin carruud markay inta waxba way qaban moogtay naayaahe laba saddex jeer ku yiri moogtay markaas ay soo noqotay way noo timid intii ku soo dhawaatay ismayna dhaweyna waxay tiri adeer gabadhaadii oo kalaanahay maxad naayaahe dhihi runta buu wallahi waa an qaldamay adeer raalli marka yani dhinaca xadaara iyo reemagaalnima muuqatay dhinacana gabdhihii Soomaaliyeed oo intii dharkii laga dhigay oo shaati labada galbis ee sare u furan tahay qabta markaan hadda indha diini ku aqriyo barigaan wax ma fahansanayn waxaan garanayaa xadaari ku ahay maxaa dhacay qof reemagaalo mudanayaal marwooyin iyo sida loo socdo iyo hadalka qisada qabow la isu dhahayo runtii Somali Airline waxay ahayd xogaa darsi fiican oo iyadana aan yar aan soo arkay kadib xamar baan nimid xamar markaan nimid dawladda noo yeedhay meel la dejisay halkaas haddana nolol hor laan ka bilaabay waxaan xasuustaa oo weli maskaxdayda ku hadhay dawladda maalin martiqaad noo samaysay anu marka dawladdii awowgay iyagaa tacaamulaya laakiin anigu waxaan xasuustaa beer ku taalay Afgooye oo dawladdu lahayd weli muuqaalkii aan ku arkay ilaa hadda ma iloobin nooc janno aad moodayso janna waxaan xasuustaa in markaa haystay ciidankii guulwadayaasha nin caan oo janan oo qaali abu ahaa ninkaasaa martiqaadka dawladda mas-uul nooga ahaa marka waxaana la geeyey meel beerco oo tog oo webile webiga maana arag laakiin webigay saaran tahay dhulkan hoos oo dhan waa doog korna waa geedo geedahana laga gurayaa waxaan cuni lahayn meel kale lagama keenayo bariiska iyo hilibka laga keenay hotel saan u malaynayo cambihi anoo dhowrina la gurayaa mooski baa la gurayaa kii kale cinabkii liintii shaqaalihii masafay wataan oo ku soo gurayaan kaasana la soo hordhigayaa isagoo dhooqadii leh sidii way dhaqayaan laakiin waxaan la yaabanahay hortaada lagu gurayaa maba ahanba wax la sii kaydiyay wax store laga keenayo nicmada markaa Soomaaliya taale markaan xasuusto dawladdaasi wixii ay ku haysay webiyada ee nicmo ahayd weli maskaxdayda kama bixin xamar waxaan joogay I think sanad iyo bad iyadana waxaan halkayga ka sii waday duruustii waxaan aad ugu taxmay masjidka Sheekh Ali Suufi Allah yarhamuhu oo runtii la dhihi karo Soomaali Sheekh Cabdirashiid aabihi Sheekh Cabdirashiid oo yar baa joogo dhalinyara anaga naga sii yaraa markaas Sheekh Cabdirashiid arkin uu iska buuran yahay Sheekh Cabdirashiid nin dhalinyaro yar buu ahaa I think inaan ahaana oo ka weyneyn markaan hadda fiiriyo markaas nin yar buu ahaa runtii laakiin wuxuu hilibku baa yara weyneeyay inaan ka weynahan malaynaya Sheekh Cabdirashiid marka Sheekh Ali Suufi waan xasuustaa markii uu horeysay in darsigiisa imaado Sheekh Ali Suufi wuxuu ahaa dadka si toos ah dadka ula hadla iska dhalinyarana bariga timo weyn baa lala bixi jiray marka timo weyn baan lahaa dhinac xerow wadaad waan ka ahaa laakiin dhinaca kale fashion-kii markaas socday timo weyn lala baxaa baan lahaa moogta marka wuxuu lahaan jiray maqribkii dadka intisaal loo fadhiisiyaa quraanka dad gooni amale bacda al-maghrib dadka dhan baa soo fadhiisan ninkii rabaa quraanka marka qof walba waxa laga dhageysanay aayatayn oo laga sixi tajwiidka marka inaad ardayda goonida aad tahay muhiim ma ahayn qof kaste oo muslima oo quraanka laga saxar raba sheekhu ka sixi jira Allah yarhamu markaasaan soo fadhiistay oo anoo quraanka habkii hore u aqrinaya marka ereygii igu yiri wali maana iloobin qaladkayga markuu arkay show dhinacna uu ka yara xanaaqsan yahay sida timahaygu yihiin marka timo si ahayn waa timo weyn baan lahaa meeshana waa meel moogtahay xalaqad diini ah inaan yara hor leehana wuu arkaa marka si message wuxuu ii gudbiyay waxana ma garanaysid tajwiidka quraanka waan aqaanaa oo waan soo dhigtay laakiin habka hore aan u aqrinaya marka timaha weyna wuu weerar rabaa tajwiidkiga inuu yahay wuu tusi rabaa moogta markaasuu mar iga saxay buu yiri timo weyne waxaad sheegay sax ma ku noqo timihii maalmihi iska soo jaray marka horta waan ogaaday laba quraankii aan watay meesha laga galay baa ogaaday quraanka aan watayna kan inuu ahayn tajwiid markaas ay ugu horeysayba ila xirwa horeyso xirwa quraanka soo dhigtay ki inna allaha ghafuurur rahiim subc iska lahayo jiibinay buu ahaa marka runtii Sheekh Ali Suufi qof kasta oo Soomaali ah quraanka yaqaan waxaan islaahay wuxuu ku leeyahay gacan weyn aniga isaga igu horeeyay quraan tajwiid lagu aqrinayo maalinta laga bilaabana hadalkiisii wax badan buu ii taray muddada markaan xamar joogay
ولي nidaamkii kutubtii aan akhristo yaa waxa igu dhashay in aan bal waxbarasho nidaami ah oo tan hadda xirnimada wax fiican ma ka akhristay maadi ah inaan u gudbo ani marka maadiga ma xiisaynay laakiin madaarista yaan xiisaynayay marka Jamaal Abdi Naasir iskuul dhihi jiray baa jiray Sheekh Ali Suufi waxa jiray maxad baa jiray isaguna kale laba macad carabi ah jiray marka anoo isla labadaas iyo ka fakarahaya ilaa markaas waxa gacanta in ku haysta dawladii maxaa siyaad bare yaan adu dadkii de loo yeeray waxaan nahay Soomaali galbeed dadkeeda ciyaanta ahaa ee muuqday ay dawladdu u wada yeedhay oo ayada ilaa Hargeysa ilaa Muqdisho ayada baan saaran aniga awowgayga sidii wax u tacaamul jireen garan maayo laakiin dad waxaan ahayn dawladdu ay keentay guri fiican waa iska deganay dawladeed baa ahayd dawladeed ma iska ahayn هذا مركا أنا كفكر هي إن مثل جمال عبد الناصر كان يمجشع يا وحان أنا كقرابة دونا هاي نقول هذا مدحوين أحمد مذوبي أحمد مذوبي هذاك اسمه مدحكا اسمه يلبن كسوكرنا أحمد سلام تولد أسانو وده دقنين طريقة هذا هو سو قرابة أنه هو هذا الشيء أبيه اسمرك شو علي السلام الله يرحمه نند وحبرتينا الشيخنا مقالدنا دقن با يا هبين حافظي أنا أبوي لجوجو سو نويمت بقشة نويمته سكورهم في عندي إنه هاي هذا هو السلامة يا أبوي سيدكين ويش كيستين ومركز أنيجا ماشي في دي مركز أنيجا هوش هذا لقى شيء كيستي مركز سويدي ورويل كان دراسة وحور روين وحبرته هدي والماشي إذا وحبوا وهينين أنا كي أصعد ما كحية sheekadu saasay ku tahay bas uu wuxuu wax ka maqabo wuxuu gaari baan wataa special ila Dhobley baan tagayaa ana ka xaynay Dhobley kadibna dad baa lagu daray saas oo kiyo ku tagayaa marka fursad qaali ku ahay waa 84 marka taqriiban kutubtiina waan dhameeyay meel kalena ma qabanin qudaydu waa taagnahayo wuxuu inaan jiha u baxo u baahnaa meel u baxsataa laay bas shahaal islaam Allah yarhamu xaq buu leeyahay ilaahay jannadii hageeyo gaari uu halkii iga soo qaaday Dhobley buu u keenay bas Dhobley markaa nimid yaa awowgeen lacag buu soo siiyay saasan markii ku soo galay waxaan ka soo bilaabay amaan yarahay markaas laakiin waxa xasuusataa nin waa ahay madani waaba socdaay laakiin waxaan ka wadaa marka aan soo galahayo safarra la igu soo daray aanu kaliya ma socon karin Dhobley safar ka soo baxayaan soo raay saasan kii ku soo galay anoo yar wajeer baan ka soo bilaabay oo qaraabadii ahalku degan yihiin halkaasaan noloshayda ka soo bilaabay wajeer waxaan maalin 2 bilood baan joogay iyadana waa ka faa'iiday oo masjid jaamic oo halka ku yaala kutub lagu aqrin jiray Sheekh Maxamed Haadi Allah yarxamsana waa dhintay ragaasan iyagana aan cashiradooda wax ka dhageysan jiray 2 bilood aad joogtay waa ka sii faa'iidaysay anu ma masjidku ma ii aha mar walba meesha aan wehelka la ahay bas markii aan saa u dhameystay 2 bilood waan soo dhaqaajiyay Mombasa baskan ka soo raacay maxay ahayd baashi wajeer waxa ku mid Cielo jidka laftiisa xusuusasho igu leeyahay dhacdooyin baa kaaga dhacay markaan malaynaya meel muddo gaasho la yiraahdo inaan soo gaarnay iyo inaan soo raxmo garaado dhaxan marayno ilaa hadda markaas dhulkii hadda ma xasuusay ahaayeen kii waxa ka jiray nidaam fiican dadka ardayda ah waa la qaadi qaanuunka waxa man Ingiriiska miyaa u sameeyay qofku hadduu arday bay wadada soo istaagay uniform ka qabo oo bulshadu kama tagtaba hadda inay isbedelaan ma qaan barigaas anagoo baskii saaran ya boodinadu waxay ku yaalaan Kenya miyiga meelaha wadooyinka u dhow hal meel miyiga lagu sameeyay si carruurtu wax u bartaan boodinada marka laga soo fasaxo wadada iska soo istaagayaan marka wadada markay soo istaagaan gaari walba gacanta u haadiyaan oo meel ka fuulaan bar waa la joojin lacagna la weydiin maayo aad bay aniga igu cusbayd arintaasi anu marka kursigayga fadhiyaa baskii baa la joojiyay bas baan saarnaa anu kursiga waan soo gatay laakiin waxa la dhihi mar oo ardaydii weeyaa kala durka wiilkan halkan ku soo fadhiisiyay waxaan ku keenay Cielo waan xasuustaa aad baan runtii ugu raaxaysanayay dadkan sida ay carruurta walmaya ardaynimada sida loo xoogeynayo waxbarashadan kii aad arkayso wax shalay bilaabatay ma waa wax maskax ahaan baa dadka waxbarashada loo geliyay in ardayga la taageero hatta waxaan xasuustaa maraan fasax Mombasa aan ka baxayo oo rabay inaan ilaa Mandheera socdo lacag ma ana haysanin gaari police baan raacay weyn student manafuusi arday miyaa time baa lagu dhiyo kaarkan baa tusi dawladda ba xaq baad ku leedahay hadda arday taa gaariga dawladda horaabad ka fuuliba marka runtii waxyaabahan ku soo arkay kamid ahayd
waxaan imid meesha la yiraahdo Isyeelow